السلام عليكم daawadayaal muuqaalkii kan ka horeeyay waxaan kaga hadalnay hodantinimada iyo waxay diinta islaamka qabto si muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadlaynaa kontaga sababood ee keenay faqriga Soomaalidu ka bixi weydo sababta koowaad Soomaalidu faqriga bixi lahayd waa faham la'aanta qaanunka nolosha waxa imika maskaxdeeda ku degdegaysa waa qaanunka nolosha waxa weeye waa sababta iyo natiijada marka qaanunka macnihiisu waa marka sabab la helo ayaa natiijada la helaa sabab la'aan wax kuma yimaadaan sidoo Ilaahay quraankiisa ku yiri waja'alna kulla shay'in sababa dadka badankiisu waxay khalad ka aaminsan qadarka Ilaahay waa wax jira oo in la aamino ay waajib tahay ninkii qadarka Ilaahay beeniyana uu ku gaaloobayo laakiin waxa muhiim ah in qadarka Ilaahay loo rumeeyo sax ah tusaale ahaan qof baa si ka sax gaari isku hortuuray kadib gaariga ayaa jiray hadduu qofkaas ku guraado qadarka Ilaahay buu ahaa ma ka aqbal lahayd dabcan jawaabtaadu waa maya maxaa yeelay qofku si ka sax gaari isku hortuuray waa saas oo kale haddaad sabab la'aan wax aad ku doonayso هاجر oo ahayd Nabi Ibrahim hooyadii markii Nabi Ibrahim kaga tagay cidladaas ay wuxuun ugu soo hesho kadib ay dhaxal cararayso labada buurood ee Safa iyo Marwa sidii inuu wuxuun ugu soo hesho markii sababtii la timaada uu Ilaahay idankii biyuhu ay u soo burqanayaan Ilaahay uu siin karay biyaha Haajar iyo inay ka deeray Ibrahim laakiin mar wuxuu doonayay marka hore in la timaado sababta su'aalo kale hadaynu soo qaadano laba inamood ayaa maalintoodii dhex martay midkood waxa uu ku doodayay haddii aan shaqaysto iyo haddii aan seexaba Ilaahay baa wax siinaya mid kalena waxa uu ku doodayay haddii uu sabalayman waayo in aanu waxba helin kadib kii hore ay ku doodayay sabab la'aan ayuu Ilaahay wax igu siinaya ayaa doodii ku adkaaday oo kii kale ay ku qanciyay fikirkiisii kadib kii dooda laga adkaaday ayaa waxa uu yiri waxaan uu saaxiibka kugula doodayay baltijaabi kadib goor duhuraha ayaa uu masaajid soo galay kii salaada laga baxay ay dad kala wada qodonteen laakiin isagu masaajidka ma bixin masaajidka qol yar oo ku dhex yaala ayuu dhex galay isagoo sugayay in Ilaahay cunto siinayo sidii uu saaxiibkii u sheegay marka masaajidka uu dhex joogay waxa joogay dad masaakiin ah oo nin taajir oo masaajidka u dhow maalooba cunto u keeni jiray ninkii oo cuntada sida ayaa masaajidka soo galay si uu dadkii masaakiinta cuntada u siiyo waanu siiyay kuwii masaakiintaana way iska cuntadoodii kadib wiilkii sidii ayuu maalintii oo dhan u qatanaa oo qolka ugu dhex jiray haddana maalintii labaad ayaa uu wiilka ku soo noqday masaajidka isagoo sidii maalintii hore si lamida sameynaya oo uu qolkii dhex fadhiistay sidii caadadu ahayd ayaa ninkii taajirka inta cuntadii soo qaaday ayuu wuxuu doonayay inuu dadkii masaakiinta siiyo ee masaajidka dhex joogtay laakiin maalinta huwa ninkii taajirka dadkii masaakiinta waxa uu sheegay ninkii masaajidka mas'uulka ka ku yiri dadkii masaakiinta maanta waa la casuumay oo masaajidka ma joogaan ninkii cuntada sidii isagoo islaha iska noqo oo cuntada maanta iska celi ayaa waxa arkay wiilkii qatana ee qolka ku dhex jiray kadib wuxuu surwaadeen gaajoonay ninka cuntada iska celinay si uu cuntada ku siiyo waxaad u muujisaa calaamad uu kugu garto kadib wiilkii wuxuu iska dhigay mid qufacaya markaas uu soo eegay ninkii cuntada sidii taajirka dhankiisana uu soo kacay mise waa nin miskiin oo qol ku dhex jira ninkii taajirka cuntadii ayaa uu siiyay wiilkii uu ogaaday in Ilaahay sabab la'aan aanu wax kugu siin sababta labaad ee Soomaalidu uga bixi lahayd faqriga waxaan nahay dad mar walba cid ka sugayeen in shaqo siiso waa caadada aan ku soo barbaarnay ee bulshadeena ka dhaxalnay marka adigu haddii aad ka mid tahay dadka ay maskaxdooda ku borogaraamsan tahay in cid kale shaqo ka sugaan ogsoonow daawada fikirkaas waa fikir ku xasiinaya in weliga aad horumar dhaqaale in yar baa aad sameeyeen maxaa yeelay mar walba qof ayaad doon tahay oo mushaar oo ku siiyo ayuu hankaaga ku eegay hadaynu tusaale soo qaadano imika wadamada horumaray sida China oo kale waxa jirtay in la waayay kaaga shaqeysay dukaankaaga ama supermarketkaaga waxaana ku qasbanaadeen in ay sameystaan wax loo yaqaan rabadyo oo sida dadka oo kale u shaqeynaya laakiin leed ku shaqeynaya waxay taasi tusinaysaa in dadku 100% aanay ogoleen inay cid u shaqeeyaan oo qof walba uu rabo inuu abuurto shaqo uu soo leeyahay oo uu maamulayo sababta saddexaad ee bulshadeena faqriga uga bixi lahayd badanaa bulshadeena waa dadka dhinaca wax ka eega ma jirto shay khatar ku ah ama cadow ku ah fikirkaaga oona hayn saadaalinta xun iyo dhinaca wax ka eegto marka dhinaca wax ka eegso waxaad aaminaysaa in fikir kasta oo maskaxdaada ku soo dhaca fulintiisa ama hirgelintiisa ay adag tahay iska daa inaad fuliso waxaad aaminaysaa xitaa in la isku dayo inaanay suurtagal ahayn maxaa yeelay waxaad aaminaysaa in fikirkaagu aanu shaqeynayn ogsoonow daawade in aaminaada noocan ahi ay tahay sundulisa fikradaha waxtarka leh ee horumarkaaga iyo dhismaha mustaqbalkaaga ka qayb qaadan lahaa sidaasoo tahay markaad fikradahaaga wanaagsanaa sunta aad ku disho ayaad arkaysaa qeyrka oo wax qabsaday kadib naftaada ayaa kugu boorinaysa inaad iyagana xasado aad howlahooda wax ka sheegto
sababta afraad ee bulshadeenu faqriga uga bixi lahayd waxay odhanaysaa isma xilqaano yacni isma dirno ilaa in la diro mooyaane badankeenu waxaynu sugnaa inta wax laynoo dirayo oo baylahda ama hawsha taagan ee aynu arkayno kama qayb qaadano ilaa inta laynoo dirayo mooyaane sidaasoo tahay markasta waxaan nafteena ku mashquulnaa aan iska nidhahnaa waxa fiican in hawsha wax laga qabto waxa fiican in ay jirto qof mushkiladda xallisaa iyadoon jirin wax adiga kaa hor taagan qabanta hawshaas aad ka sheekaynayso hadday dadka dunida jooga oo dhan noocan ay fikri lahaayeen ma jireen cid horumar gaadhaa oo dunida wax cusub kusoo kordhisaaba qisayar haddaan soo qaadano waxaa jiray nin boqoraha doonayay dadkiisa in uu eego kooda isxilqaama ee wax qabta kadib maalin intuu dhagax weyn soo qaaday ay waddada dhigay ayuu meel waddada u dhowna uu ku gabaday si uu eego qofka balka qaada ee isxilqaamaya kadib dadkii waddada marayay mid kastoo waddada soo istaagay uu dad ku xidhantaaba wuxuu idhahdaa boqorkan nacaska ah boqorkan aan darka waxba ka qabanayn boqorkun buu cagay ee dhagaxan iyo hawshan taagan ma qabto waxba kama qabto kadibna uu isaga laabtay isagoo dhagaxii waddada sidii u yaala mar dambe ayaa uu soo maray nin waddada marayay kadib wuxuu arkay dhagaxan oo waddadii yaalo waddadii ay go'an tahay wuxuu isku dayay inuu dhagaxii qaado dad kale ah uu yeedhay aakhirkii dhagaxii u qaaday kadib boqorkii ayaa waddada hareerteeda ka soo baxay markaasuu ninkiina maamuusay uu lacag iyo wax walbuu ku farxo uu siiyey maxaa yeelay wuu isxilqaamo isagaa naftiisa isku daree intay ciidaraysa muusigin sababta shanaad ee bulshada Soomaalida ee faqriga uga bixi lahayd waxay tahay inagoo aan himmad sare aan lahayn hami sare aan lahayn Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo ugu dhiirigelin hamigeena kor u qaadno ayuu wuxuu oran jiray idaa sa'altumullaha fas'alu firdaws al-a'la hadad ilaahay wax weydiisansaan waxaad weydiistaan jannada firdawsa oo ah jannooyinka ta ugu sareysa haddii la amrayna jannada ta ugu sareysa damacno waxa muhiim ah in shay walba oo dunida yeelan xaq ugu sareysan damacno digsiga hadduu hooseeyo daawade qorshaaguna uu hooseeyaa rada fiican fulinteedu uma dhaqaaqno maxaa yeelay taas hami weyn ay u baahan tahay hamiga weyn ay nuguma jirayna waxaa jirtay xikmad Ingiriis ah oo odhanaysa everything changes when you think big oo macnaheedu noqonayo wax walba way isbedelayaan markaad si weyn u fikirto